imtixaanaadka shahaadiga ah ee maamulka Puntland oo 18 bisha la rabay inay ka dhaco degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa gabi ahaanba la mamnuucay sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland. een waxa khad ku jira gudoomiye Maxamed Jaacar Rabadaan gudoomiye soo dhawow. waa dhawaay suxufi maxamed waa ku salaamay adiga shacabweynaha ay dhageysanaya wadan aad iyo aad baan salaamaya waxaan ugu maqaalaa in 18 bishan imtixaanka aad ku qaban lahaydeen degmada Xudun ee gobolka Sool bal ka waran xaaladda maxaa xageedii la marsaa suxufi waa ku salaamay boqoshadaada adiga shacabweynaha mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamaya walaal saad ogsoon tahayba waxay tahay in Xudun ay ka dhici jireen imtixaano hadda ka hor lagu qaado waxay inooga iman jiray maxay ahayd wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland imtixaamadaas si nidaamsan oo asluubaysan ayay degmada Xudun ay u geli jirtay wax buuqa iyo wax dhibaato iyagoo aan jirin imtixaamaduna dadku si ikhwan ah oo maxay ahayd ardaydu ay uga faa'iideysanayaan bay u wada geli jireen annagoo markaa u eegana ardaydu labada dhinacba inay imtixaamadooda ay galaan oo ay ka faa'iideystaan maxay ahayd wax la yiraahdo shahaadadooda iyo aqoontooda iyo hadba gareerka iyo shahaadada ay ku sareeyaan waxaan u fududeyn jirnay inay ardaydu labada imtixaanba ay si nidaamsan oo asluubaysan ay u galaan iyadoo wax laga saarayo siyaasad laga madax banaanaynayo waayo sidaan ogsoonahay suxufi waxbarashada iyo caafimaadku waa ka madax banaan yihiin siyaasad in la siyaasadeeyo haddana wixii waa la siyaasadeeyey haddii aan hadda kusoo noqdo imtixaanka hadda la geli lahaa 18 bisha oo sabtida bilaaban lahaa imtixaankii muddo hadda waxaan ku jiray doodiisa iyo kaadalkeeda nasiib darro dad aad xoogaa moodayso in illiteracy ay yihiin oo waxa weeyaan aan si hufan oo xeel dheer wax u fahmin ayaa hor istaagay ay maamulka dowladda hoose ee degmada Xudun ugu horeeyaan arrinkaasna waa arrin carqabad weyn ku keenay hadda inta maamulka cusub ay yimaadeen hadda ka hor magaaladu maamul waa lahayd maayir iyo maxay ahayd iyo ku xigeen iyo cid waliba waa lahayd alxamdulillahi rabbil caalamiin waan uga mahadcelinayaa sidii hufaneyd maxay ahayd ay u fududeynayeen imtixaanka in loo galo maxamed maadaama waa maxay sababta lagu haysto imtixaanka haddii maadaama hore loo geli jiray sababta lagu haysto suxufi waxa weeyaan niman gole deegaan sheegto oo degmada Xudun jooga ayaa waxay ka shaqeeyeen ama ay maxay ahayd sheegayaan maadaama magaalada aan hore deegaan uga jirin ama maamul hore uga jirin in imtixaankaasi uusan iman karin degmada uusan soo geli karin amarna lagu siiyey oo barasaabka amar lagu siiyey imtixaankaasi inuusan degmadu iman karin ilaa heer military ilaa heer maxay ahayd maamul la iswada gaarsiiyey imtixaankaasi uusan degmada soo geli karin waa sax adigu ma la kulantay mas'uuliyiinta degmada xagga Somaliland ee degmada jooga suxufi haa si fiican loo kulmay laba casho waanu kulannay oo isku xiga nasiib darro hadalkaygii lama ajiibin oo waxaad moodaysaa dadka aan la hadlayay markaa dad ku habboon hadalkaygu inuu gelayo ama waxaan ka hadlayo si deeply u fahansan inaysan ahayn waxaanu ka doodayay oo aan xitaa u sheegay war taleex imtixaankii hadda iyadaan marti u nahay oo fonfoorku uu si official u aadi doona haddii aan ka dhigo taleexna waad ogsoon tahay suxufi barasaab bay leedahay wali deegaan bay leedahay xubnihii kale oo taliyaashii iyo taliyahii militariga iyo booliga intaba way leeyihiin haddana iyadaa marti loo yahay oo wax walba way soo dhaweynayaan imtixaankii si official oo ardaydooda buuq aan lahayn aan gurguur lahayn imtixaankii ay u qaadaan oo ay u galaan laakiin waxaa nasiib darro ah Xudun maxay ahayd in mar walba laga shaqeeyo bacbacsi iyo ororod iyo siyaasadeed iyo istabagal in ardayda mustaqbalkeedii laga lumiyo waan u sheegay waxaan ka hadlay oo si aad iyo aad waan uga hadlay waxaan ku yiri ardaydaas wax inaynu siyaasadeeno maaha degmadii inaga mas'uuliyiin u ah haddana aynu mas'uuliyiin u nahayna waxaan u baahanahay in xaaladda degmada iyo ardaydaas aan dhibaatadooda iyo kaahiyadooda laga shaqayn si ogsoontahay suxufi waqti adag baa lagu jiraa dadku safarka ku adag tahay waaya waxaan ugu maqaalaa inaad imtixaan ka wareejiseen magaalada Sarmaayo maxaa ka jira suxufi waa sidaas weeyaan imtixaankii markii dibkiisii batay oo hadalhayntiisii badatay imtixaankii ardaydii waa ka baaqan kari weynay inaan ka baajino waa nala xumaatay waayo ardaydan dee mustaqbal baanu la doonaa ardayda mas-uuliyiintoodii baanu nahay in mustaqbalkooda maxay ahayd ay soo saaraan oo waxa weeye imtixaankoodaas ay si habsamida ay usoo galaan dib kasta ha ku ahaatee bay nala noqotay suxufi waa sax
waalidiinta iyo ardadu iminka way ku jahwareersan yihiin imtixaanaadkan waqtigan marka uu yimaado oo kale xaaladda iyo waqtiguna waa iska adag yihiin maxaa ugu baaqaysaa shacabweynaha ku dhegeysanaya iyo ardayda ku dhegeysan doonta shacabweynaha iyo ardayda iyo guud ahaan mas-uuliyiinta ay dhegeysanaysaba waxaan ku baaqayaa in ardaydaas iyo ardaydaas la garab istaago in meel kasta ay tagaan si hufan oo maxay ahayto loogala shaqeeyo loo soo dhaweeyo in ardayda iyo in waalidka iyo ardayda guud ahaan iyo aqoon-yahanku ay isgarab taagaan ardaydaas in laga qayb qaato sidii ardaydaasi si hufan oo macquul oo sharaf leh imtixaanka u geli lahaayeen ayaan ugu baaqayaa loona garab istaagi lahaa waa mahadsantaha aad baanu kaaga macelinaa gudoomiye sidoo kale suxufi waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha degmada xudun in shir ballaaran la isugu yimaado haddii alla ka dhigo si loo gorfeeyo bal xaaladda degmada iyo habsami socodka arrimaha bulshada